مسؤولينta xisbiyada mucaaradka Somaliland ee u ciidiya wadani gobolka Saaxil oo maanta waraysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga ee Somali News ay waxay mas'uuliyiintani soo dhaweeyeen go'aankii iyo heshiiskii ay ku heshiiyeen saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda Somaliland kaasi oo meesha lagaga saaray muddo kordhintii ay golaha guurtida Somaliland u sameeyeen xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaayo sidoo kale mas'uuliyiintani waxay ka soo horjeesteen go'aankii uu gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland uu ku naqdiyay heshiiskaasi dhex maray xukuumadda iyo saddexda xisbi qaran waxaana ay sheegeen in saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda Somaliland ay asiibeen waqtigii ugu munaasibsanaa ee ay dalka ka dhici karto doorasho xor iyo xalaal ahi iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa muddo badan waa kii khilaafka yara taagnaa muddo kordhintii ay guurtu ku dhawaaqday maanta waxaan leeyahay waxay dadku ku hesheeyeen baa sharciya ayaguna inay xalaaleeyaan oo qalinka sidaa ugu dhuftaan baa ku waajiba waana la horgeynaya goluhuna salaabaanu maaha mayso wax badan oo la qabsanaya oo gaar u noqdo inta la heli maayo waxaan leeyahay ku qanac waxay ummaddu isku raacday aduguna magac iyo subcad baad ku leedahay ummadee yaani magac iyo subcadii wax yaroo nusqaala darteed kaaga dhigo asalaam waxaan kelmad ka oranayaa go'aankii ay wada gaareen saddexda xisbi qaran iyo xukuumaddu waxaan leeyahay waa guul Somaliland u soo hoyatay watii ay Somaliland ku caanamaashay weligeedna xagga dusha laga gamayay iyadu ba ka shaqeeyay waa guul baan leeyahay intaas u soo hoyatay waxaan kaloo cambaaraynayaa gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan kelmadii uu ka yiri meediyaha ay dooratay ee ummaddu ay doonayso ay ummaddu isku raacday ee kuwii tartamayay iyagu loolanku ka dhaxeeyay iyagoo gacmaha isqabsada ay kula yimaadeen taayna doosta ka xariiqda oo raacdaba laga doonaya horta waxaan taageernaa marka koobaad heshiiska ay gaareen saddex xisbi qaran marka koobaad waxaan taageernaa heshiiska ay gaareen saddex xisbi qaran ee ahaa arrimaha doorashada laga heshiiyay marka labaadna waxaan cambaaraynaynaa mas'uulkii labaad ee waddanka ku sareeyay mudane Saleebaan oo dan kasta oo dalkan leeyahay hor istaagay isagoo ahaa shakhsiga marka horena khilaafka bilaabay ee muddo kordhintan qofka koobaad ee ku dhiiranaa marka halka waxaan ka hadlaynaa koobaad saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda waa afar weeyaan wadar iyo waaxid baareer kala badan waxa badan wadarta marka waxa fiican in aanu Saleebaan aanu la garanaysaayay arrinkaasi haddii arkin laga badan yahay oo ma garanaysaayay ugu duu saaro dambe oo maxaan ku ay tanaasul sameeyo u dhaahdo waxaan yahay midanta qaranka Khalid Xasan Kharash Som News TV magaalada Berbera